dowladda Soomaaliya ee hogaamiye madaxweyne Farmaajo ayaa baadigoob ugu jirta soo celinta hantidii dowladda sidii dhulka danta guud ee loogu adeegi jiray shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale dowladda ayaa xoojisay nidaamka garsoorka labadii sano ee la soo dhaafay. waxaa la dardargeliyay sidii shacabka Soomaaliyeed isugu celin lahaayeen hantida ay kala haystaan oo ay ka mid yihiin guryaha dhisan iyo dhulka bannaan. sida uu qabo dastuurka kumeel gaarka ah dowladda federaalka ah waa inay isku daydo dib u soo celinta hantida dowladda iyo dhulka loo isticmaalay sida sharci darrada ah ee aan habboonayn. guulaha ilaa iyo hadda la gaaray waxaa ka mid ah inay gacanta dowladda ku soo laabteen dhowr xarumood oo muhiim ah kuwaasoo iminka lagu wado dib u dhis lana filayo in mar kale loogu adeego danta guud. ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa magacaabay guddi ay xubno ka yihiin wasiiro xeer ilaalinta dalka iyo hanti dhowrka qaranka. guddigaasi ayaa shaqadoodu tahay ka shaqaynta soo celinta hantidii qaranka waana tallaabo muujinaysa sida ay dowladda Soomaaliya uga go'an tahay dib u yeelidda asaaskii dowladnimo. dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo ah hogaamiye markasta u taagan u helinta cadaaladda iyo inaan la dulmin muwaadin Soomaaliyeed ayaa muddadii uu xafiiska joogay waxa uu xoogga saaray tayeynta garsoorka dalka iyadoo isbedelo lagu sameeyay lana siiyay tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda si loo helo garsoor cadaalad ah oo dhageysta cabashada la xiriirta guryaha iyo dhulka la kala haysto. maaro maxamed caamir oo 29 sano laga haystay gurigeeda ayaa asbuucii hore ku guuleysatay in lagu wareejiyo gurigeeda waana natiijo wanaagsan oo ka soo baxday dib u habeyntii lagu sameeyay garsoorka dalka. waxaan mahad celinayaa madaxweynahan igu garabsiiyay in gurigeyga xaqeyga ii siiyay xasan khayre intii oo hadda maanta madax dhaho iga soo qayb galeen ilaahay bacal baliiskan khayr Allah siiyo. intaasaan u diraya u mahad celinaya qof la bahdiliyaan ah qof la bursadaan ah qof dhibaato loo geystay ah qof xirag loo geystay ah dhibaato xun ay igu dhacday ninkii ii garab siiyay ilaahay garabkiisa Allah siiyo. gudoomahana waa ugu mahad celinaya oo gobolka inuu garab siiyay dadkii dhan oo garsoorayaalkii dhan dadkii dhan ugu mahad celiyay. waxaa laga haystay 29 sano sanadkan hadda socoto. إن الله مع الحق قف كستور دبنا إحنا وحتاجنا هني إن حقود السينو ما أنت وحي كدم بيان قف الله قف كجوري لجاه هستو دقمة الشيء بسوي قناة ونوع إيمان كرا وعدالة هدو أسيق قلدني هاي عدالة هرجين دونا دو اللي يراهدو. وأكحنا هاي معاملة إن مدة هجوري دي سي شرع الدراء لوجه هستي سلامر كان دباتون لوجه هستي وحن وقدينا دتك نوع سكلا ورنتي دتكي guryaha lahaana ku dhibay in talaabo sharci laga qaadi doono dadkaas iyaga ahna waxaan u gudbin doonaa hay'adaha sharciga si talaabada ugu adag looga qaado. waxa kale oo iyadana u mahad celinaynaa dadkii deganaa oo sida kirada ku deganaa oo si nabad ah iyagana maanta loo guuriyay halkan aad arkayseen sida ugu faraxsanaayeen. annaga waxaan rabnaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inuu helo cadaalad sinaan sida kaliya ku heli karno waxay tahay inaan dadka dulmiga wado iska qabanno dadka been abuurka dokumentiga samaysanaya iska qabanno isla markaana aan la shaqeyno hay'adaha cadaaladda. marka waxaan rabaa maana inaan kugu wareejino furaha gurigaaga aad u mahadsantahay. diinteena islaamka iyo dhaqankeena suuban ayaa qaba inaan lagu xadgudbin hantida qof kale oo islaam ah. culimada Soomaaliyeed waxa ay kaalin weyn ka qaadanayaan wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee ku jirta iminka soo kabashada iyo dibushisinta iyagoo u sheegaya inaysan habboonayn in lagu xadgudbo hantida qof kaleeto. kuwa la haysto dadkii leeyihiin waaga horta iyagu waaba dambi jaraa'im waay in wali la haysto بعد 20 سنة قولي قف كان ليه قف سواني كجرت حرام وي حرام صلاة أنصح مه أولادي كلها حلال معهن صلاة اللي قدوا كذا مقبول معهن والذنب وين هذا وحال ربا أنت كواس لقى صوفر حشو إن قريها اللي يصب النهاية على ربا النبي صلى الله عليه وسلم وكبلال
reer boorama iyo reer ayl ay soo degaan guryaha banaadir ku yaal kuwa reer banaadirna xagga la geeyo waxaan rabnaa dalka in laga gudbiyo marxaladda adagoo maraayo cidna yaan loogu jixin isku duubnaha looga gudbiyo